Tuulada Caloosin oo u jirta 15 kiiloomitir deegaanka Bohol oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu arkay meedka gabar yar oo ahaan lagu qiyaasay 11 jir oo uu ka muuqdo jirdil xoogan waxaana faahfaahin ka bixiyay taliska booliska magaalada Dhuusamareeb. Gabadhan lagu magacaabi jiray Ikraan Miraxaash ayaa waxaa la sheegay in jirdil xoogan ay u geysteen hooyadeed iyo nin qabay waxaana maanta lagu aasay qabuuraha military ee magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb Dhame Burhaan Axmed Roble ayaa sheegay in meedka gabadha laga soo qaaday deegaanka Bohol isla markaana jirdil xoogan ay u geysteen hooyadeed iyo nin qabay taasina ay sababtay in qayb ka mid ah jirkeeda uu go'o. oo meesha aan ugu tagnay meedkii Allah u naxariisto gabar yar oo saqiir ahayd oo dhacdadaas ku dhimatay deegaankii dhibka ka dhacay gabadhaas deegaankii dhibka ka dhacay aan ugu tagnay waxa la yiraahdaa Bohol magaca gabadha geeriyootayna waxa la yiraahdaa Ikraan Miraxaash Guutaale da'deeduna waa 11 sano jir runtii waxaa loo geystay dil arxan darro ah waxaa loo geystay jirdil iyo dhibaato aad u badan iyo waxa weeye waa oo runtii qof islaam ah oo arka oo ka naxayo ama oo dareen ka qaadanayo kadib waxaan ku baxnay hawshayni ayaan guda galnay waxaan ku baxnay meeshii dhibka ka dhacay annagu ka ambaqaadna safarkayni Bohol oo yaalay meedkii maxuumadda gabadha saqiirta ah ee ku geeriyootay dhibkii shalay ka dhacay Caloosin waxaan gaarnay goobtii dhibka ka dhacay waxaan soo xaqiijinay sidii wax ay u dhaceen goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xirnay crime scene inaan baaritaan sameynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii marag muujin waxa la yiraahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go'go'ay oo xilligii la dilay gabadha waxaa ka mid ahay qaabkii loo dilay nabarro la gaarsiiyay madaxa gabadha waxaa go'ay cadad ka mid ah jirkeeda timaha cadad ka mid ah jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sidii u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayay inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumadda saqiiradda ah oo la yiraahdo Ikraan Mire waxaan rabnay inaan markaas saxaafadda la wadaagno inay arrinkaas u gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdooyinka noocaas oo kale si looga digtoonaado bulshada reer gobolada dhaxana waxaan rabaa inaan u sheego kiiskan aan soo qabanay ilaahay idinkii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geystay oo waliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku fakad doonin ehelnimo oo la geey doono sharciga wixii ay ka helaan ay yeelan doonaan haddii Allah idmo waxaana hadda socda baaritaanadii ilaa iyo haddana waxaan haynaa warbixino xoog fiican oo nagu filan ah